بسم الله hilibka ariga oo la foorneeyay maasha Allah ovenka la gelinaysa ma ku karinaysid biyo maasha Allah soo dhawaada maasha Allah sidaan oo kale markii loo foorneeyo maasha Allah waa si aad u wanaagsan maasha Allah ku soo dhawaada channelkeena Same Hay Dhaafin Kitchen jikadeena maasha Allah tabarakallah kala aan wada karinay cuntada taawasho wacan maanta waxaan sameysanaynaa hilib ari goat meat oo ovenka kaliya la gelinayo waa la foorneynaa bis ma la karinaayo insha Allah tacaala meesha waxaan ku haysanaa kabsar caleen ama coriander hadba sidaa u taqaanid iyo maraq digaag maasha Allah meeshan kale waxaan ku haysanaa tomato paste oo yaanyada shiidan inta waxaan ku haysanaa xawaajiyaal badan oo isku dhex jiro maasha Allah all spices oo badan 7 spice tomato paste meesha ku soo shubanay meesha waxaan ku haysanaa oo kale caano yar oo 4 meel markii loo dhigo koobka qayb maasha Allah intaasaan isku qasanaynaa hilibkaan ku sameysanaynaa bis markaas maasha Allah tabarakallah daawasho wacan sidaan ka dhigno hadda waxaan ku daraynaa kabsar caleentii iyo maraq digaagii iyo waxyaabihii kale oo one by one aan ugu dardarayno maasha Allah tabarakallah caanihi aan ku shubanaynaa inta yarteeda caanaha maasha Allah tabarakallah markasta waa fiican yihiin smooth kaaga dhigayaan hilibka maasha Allah tabaaraka maadaama wax biyana aan lagu dareenin oo dhacaankiisa isaga uu dhalay oo maasha Allah hadhowtina uu dhex galaayo oo dib maaragtay ugu sii dhameysanayo dhacaankiisa aad ugu macaanaanaya caanahan markaa ku dartid caanaha waxa waaye markastaba way fiican yihiin caana marna ma xumaadaan maasha Allah tabaaraka waxaan ku darsanaynaa tomato paste aan ku daraynaa waxaan ku sii darsanaynaa insha Allah xawaajigii iyo waxyaabaheeni kale xawaajigaan ku sii darsanaynaa carafta ka dhigayo maasha Allah maraq digaagii aan ku darsanay kabsar caleentii aan ku darsanay caanihi yaraan ku darsanay xawaajigii aan ku darsanaynaa kan hadda waxa waaye yellow ka food coloring waaye oo yellow kaasna lagu daraaya insha Allah tacaala maasha Allah si qurux badan oo maasha Allah uu noqonaa hilibkan ovenkana markaa gelisid maasha Allah tabarakallah si aan uu noqonayaa maasha Allah tabarakallah spice yadana ku daray aniga maasha Allah tabarakallah waa isku soo qasaynaa markaas waxa dhan insha Allah waa isku soo laabanaynaa haduu Ilaahay yiraahdo waa isku soo qasnay maasha Allah tabarakallah hilibkii iyo adaptationkii haddan la isku soo qasay maasha Allah tabarakallah markaasna ovenkaas la gelinaynaa dhaladaana ku sameysanaynaa insha Allah tacaala aan ku ridanaynaa ayada ovenka la gelinayaa insha Allah marka aluminum afka uga xireysaa sidoo ugu huuro oo si fiican ugu karo maasha Allah tabarakallah dhaladii aan ku ridanay aluminumkina waa ku daboolnay insha Allah tacaala hadda ovenka la gelinayaa 1 saac iyo bar ama 1 saac iyo 45 daqiiqo markay ugu badato ayuu ku karayaa maasha Allah waxa la rabaa biyaha inuu dhameysto oo in badan uu ku jiro meesha markii marmara soo bixinay adii 2 jeer camal ayaa dhinaca kale u gadinaysaa marka hadda ovenka aan gelinay bas waan sugaynaa 400 ama 425 ayaan u geynaynaa 400 ovenka intaas aan numberka u geynaynaa insha Allah tacaala 400 aan hadda u geystay insha Allah waa arkaynaa markuu ka soo baxo hilibkii qurux badan maasha Allah tabarakallah waa kana waa ka soo saarnay 1 saac iyo bar uu ku jiray maasha Allah marka saacada u fiirsanaysaa ama waxa fiirinay markasta sidoo hilibka biyaha kaaga dhamaa qoyaanka maxaa yeelay biyo dhalaya markii la geliyo dabka marka maasha Allah waxa la rabaa hilibka in gacanta lagu gooyn karo ama maaragtay oo uusan adkaanin oo jilicsan yahay oo maasha Allah waa kana hadda maasha Allah wax qurux badan oo noqday kalar qurux badan oo macaan maadaama kalarkii aan food coloring aan ku darnay yellow ahaa yaanyadii iyo wixii dhan iyo kulli maasha Allah xawaajiyaadkii maasha Allah tabarakallah caanihiina waxay ka dhigeen smooth ayagana maasha Allah aad u qurux badan yahay kalarkiisa haddana markii la cunana maasha Allah tabarakallah waa Ilaahay ha u daaweeyo intii cunaysa iyo intii ma aragtay karisayba maasha Allah tabarakallah bal idinkana soo fiiriye alaabta caadiga aan ahayn waa alaabta culimada dhigi jirnaa anaga waa alaab beel waaye hilibka misaar markii saa loo kariyo mar dambe biyo ku karsanaysiin hilib
haddaa aragtiin maasha allah tabaarakallah. Inkastoo dadka dhan ay badanaa ay ofinkana gashadaan in caadina u karsadaan markastaba dhaqankeena iyo hidaheena waaye hilibka hilib ariga iyo maaragtay waa kaasaa biyihii iyo dhacaanka iyo qoyaankii dhan waa ku dhammaaday maasha allah. maasha allah dhaladan kale aan kusoo shubanay, dhaladii kaleeto waa kasoo saarnay oo lagu kariyey lagu lala geliyo ofinka. waa ujeedeen dhalada haddada waxba malahan oo lagu geliyey qoyaan iyo waxba iyo malahan, qalayl uu noqday maasha allah. qalayl oo qalalan oo adeeg ana ma ahan. maasha allah tabaarakallah. wax yar oo macaan oo beel lahoo qoyaankiina lahoo alaab uu noqday. haddaa rabti bariisaa ku cuni kartaa, haddaa rabti baasta geeska saaran kartaa ka cuni kartaa. inkastoo bariiska badanaa ugu fiican yahay, waxyaabo kale cunto ah ku cuni kartaa. waxaad doontid kaligiisa haddaa rabti cuni kartaa. intaa koob shaah bigeys usoo qaadatid ku kabatid maasha allah, meel u diidayo malahan. waan soo qaadnay hadda weelkaana ku ridanay maasha allah tabaarakallah. weelashaan haddaa haysatid waa weelasha tarmuuska ah oo maaragtay cuntada kuu kululeynayo ku gurnay. kan haddaa haystid kana ku ridan kartaa maasha allah tabaarakallah. waa kaasaahe waxaa la rabaa asxaabteyda inaa maaragtay idinkana ila aragtaana rabay. hilibkan aadaan uga helay maasha allah tabaarakallah. anagu waa ku tuuranaa reerka ciyaalka xataa aan hilibka cuni jirin xataa maaragtay oo yaryarka ah way cunaan hilibkan. badanaa way necab yihiin ciyaalka badanaa hilibka, laakiin markii saa loogu sameeyo maasha allah aaday u jecel yihiin. adiga weyna xataa jeclaanayo qofkii waayeel ah, qofkii maaragtay kaleeto. waxaa rabaa gacanta saa inuu u kala gogo-ayo maaragtay hilibka. waa in qofka intuu afka gasha ilkaha ku qabto uusan iliga ku xanuunin waay. markasta oo hilib la karinayo aadaa loo jilciyaa maasha allah. yacni wax tumaaja lama rabo, laakiin wax oo la cuni karo dee oo gacanta lagu kala goyn karo ayaa loo baahan yahay. hilibka hadduu adag yahay malahan markaa wax fiicnaana ma lahaanayo. maasha allah tabaarakallah. hilib jilicsan oo macaan oo qurux badan kalarkiisana maasha allah tabaarakallah ayuu noqonayaa insha allah tacaala. intaasaan kusoo gabagabaynayaa. halka aad nagala socotaan oo aad naga daawanaysaan waa Same Haydhaafin Kitchen insha allah tacaala. intaan dib dambe ugu kulmi doono video kan oo kale ah insha allah tacaala. waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin daawashadiina. subscribe kana ha iloobin si ay ila socotaan. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.